Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada barnaamijka Top 5 oo aan ku soo qaadan doono su'aanteyda hadday noqoto gabayo, heeso, sheekooyin iyo wixii la midaba, innagoo iska dul taagana marba shanta ugu muhiimsan ama aan aragno inay lama huraan yihiin. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 5 heesood oo aan anigu curiyey, kuwaasoo sanado kala duwan soo baxay. Heesta ugu horreysa magaceeda waxaa la yidhahdaa Barasho. Waxay leedahay: dadka qaar barashadooda ayaa xanuuna beera, badh kalena waa sidiinoo boggaa kuu qabooba. Dadka qaar waad u buseeli, qaar kalena waad ka boodi, oo qaar waad u barooran, qaarna bisin baad ku dhaafi. Dadka qaar baahidooda ayaa bilo abuurta, qaarna waad u boholyoobi marka aad ka yar boqosho. Dadka qaar way ku baanan, qaar kalena way ku baabi'in, oo qaar bustay ku saari, qaarna ban bay ku seexin. Aniguna bahdaan jeclaayey, naftaan idiin bixin karaaye, barwaaqiyo nabad ku joogo, boqor cadaab ka daafac. Heesta labaad waxaa la yidhahdaa Gun iyo Gob. Waxay leedahay: gun baa hagar lagu yaqaan, gob baa hiil lagu yaqaan, geed baa hadhac lagu yaqaan, guul baa haag lagu yaqaan. Gura ahaan lagu yaqaan, hub baa geesh lagu yaqaan, gurtaa hadal lagu yaqaan, golaa haye lagu yaqaan. Gan baa hable lagu yaqaan, god baa horor lagu yaqaan, gaalaa hoog lagu yaqaan. Gar baa habid lagu yaqaan, gacmaha hawl lagu yaqaan, hab baa gaari lagu yaqaan, horaa geesi lagu yaqaan. Good baa halis lagu yaqaan, gool baa hilib lagu yaqaan, fuq baa geeri lagu yaqaan, hed baa gifaf lagu yaqaan. Hiddaa gabadh lagu yaqaan, hal baa gaax lagu yaqaan, hees baa gaaf lagu yaqaan, hool baa gabay lagu yaqaan. Hoodtaa guluf lagu yaqaan, hawd baa gogol lagu yaqaan, hannaan gacal lagu yaqaan. Gar baa habid lagu yaqaan, gacmaha hawl lagu yaqaan, hab baa gaari lagu yaqaan, horaa geesi lagu yaqaan. Heesta saddexaad Hagrasho. Haddaad ruux heshiisaan inaad horumar gaadhana aad habaysataan duul, waxaad haysataan baa laysu wada huraayo, hagarashaduna waa ceeb. Haddii la iskhiyaamana habsaan baa yimaado, gadhow baa midkii falay xumaanuu hiqleeyaa. Waxbadsigu mar buu hoy hungo uu dhalaayo, adigoon haraad arag luun ku horseedaay. Dhugo nuxurka heesto yan damaaci kula hadhin. Naf hoggaansan weydaa haadaan bay ka duushaa, isaguna halyaygan talo helin ayaa jira. Hanka iyo qabkaagana meel hoose lama dhigo, haweenkiiyo dadkana qaar lama bado dhib iyo hawl. Kii hilinka seegana waa lagu hagaajiyaa, haddii uu iskiijana waa laga howlelaa. Heesta afraad waxaa la yidhahdaa Maalmaha Qadhaadh. Waxay leedahay: maalmahan qadhaadhow miyaad ii qoraydeen, murugtiyo dhibaatada ila maaganaydeen. Inaan meel istaagana maanka aad ku hayseen, marka aan bariiqdana igu maadsanayseen. Geesi miigan weligii dhibta wuu muquurtaa, isna kuma habsaamee wuu maaran yaqaanaa. Macaankiiyo qadhaadhkuna waa laba isdaba maraa, marti kaad u noqotana mawlaa kaa kaxayn karaa. Majaraha jacaylka iga faramaroojow, mar baan ka adkaanoo midayda intaan helo aan masxaradii doonaa. Heesta ugu dambeysa heesii hore waa ka duwan tahay, maxaa yeelay iyadu waa hees lamaane ama wiil iyo gabadh iska soo horjeeda oo isu heesaya. Magaceeda waxaa la yidhahdaa Godob. Wiilkii baa bilaabay isagoo gabadhii la hadlayay, wuxuu yidhi: inan yahay goyaal hore gabdho qiimalaas jiray, adigoon u gelin hadal baa geesigii dhalay geed loogu iman jiray. Markaasaa gabaatiyo boqol geela iyo yarad intii gegi lasoo tubo geenyada la bixin jiray, gelbiskiiyo arooskiyo gaafkuna dambayn jiray. Balse xaajo gudubtoo galoolkii la dhaafiyo huteel baa la gelayaa. Waa su'aal gun weyne, dhaqankeennii guudkiyo ilaa goro u fiicnaa yaa godob ku falayoo gaadhiyaasha badan iyo meesha gaasta keenoo hiddaheennu gubayoo misna gaari sheegto aan gafeeda qiranay. Intaa markuu ku baanay ay gabadha waxay ku jawaabtay: mahmaah gunaad tidhi, wax tagoo ku gabay adi gacan laguma tigsado. Shay aadan gaadhayn ha u ooyin gabanow. Anna gaari baan ahay, dhaqankaygu waa gaar, inaan kuu gardaadsho gabno fiican kuu dhalo, runi waa maguurte geeridan ka jeclaa. Macnaha inaan carruur kuu dhalo inaan dhintaan waa dhaantay. Gardarriyo inaad cay goobta aad la joogtana gabaygaa u marage. Waa su'aal gun weyne,
inan garasho badan oo qurux lagu galladay oo gayaakeed u bidixshoon miyaad gaajo daran iyo la rabtaa gelgelin iyo inaad buul xun geliso aad dhex geysid buuraha walee ruux goynaad waayahay maanta halkaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeena 25 la soco qaybta labaad